aan waxay soo jeediyay oo igu kalifay inaan video duubo oo idin soo harfariisto wax kale maaha waa xanuun iyo dhibaato aan dareemayo caaw dhibaatadeedana waxa dareemi karo wiil walba gabar ay la dhalatay ma fahanteen ana inta soo ooy karo waa soo ooyay inta rafaadi karo waa soo rafaaday inta liigu gumaysan karo videoga madaxiisa waa liigu gumaystay lacag iiga baxday waqti iiga baxay wax kasta waa iiga baxay laakiin maanta gabadha TikTok ta ka caanka ee fahmna fiicnay ayaa maarin murugale ka hadashay kadib markii muuqaalka horaad ku wada aragtaan baraha TikTok ta soo dhigtay iyadoo ka sheekeynaysa in muddan dheer lagu rakaateynayay video laga hayo taasoo dabcan ay sheegtay videogaasi in loo adeegsaday mukhaadaraad lagana faa'iideystay muuqaalna laga duubtay kadibna in badan ay maal iyo sidoo kale lacag ay ku bixinaysay fahmna fiicnay videogaasi taasay sheegtay marka Itoobiya iyo sidoo kale Hargeysa ay u dalxiis tagtay in baraha bulshada la soo dhigay gaar ahaan Telegram kuwa ka duuban ay ka qaateen lacag iyo sidoo kale wax walba ay u sameysay si kasta daawadayaal arrinkii ayaa gabi ahaan soo cusboonaaday waxaana la arkay videoga oo baraha bulshada wareegaya taasoo dabcan u adkeysa weyday gabadhaasi fahmna fiicnay runtiina banaanka keentay videogaasi in muddo lagu rakaateynayay taasoo dabcan ay wada ogaayeen dhalinyarada TikTokeriska isticmaala dabcan ay sheegtay magacadooda Loosay Mursal iyo sidoo kale Baabajay arrinkaasoo idilna ay la wadaagtay balse daawadayaal arrinka oo raggaasi ay galeen kadibna laga heshiiyey ayaa gabi ahaanba soo cusboonaaday taasoo muddo badan wax loogu hanjabo lacag iyo adduunna lagaga qaato fahmna fiicnay waxay gabi ahaan noqotay in videogaasi laga soo baahiyo iyadoo la soo dhigayo Somali Nude oo runaantii ah meel runtii Soomaalida muuqaalada lagaga duuba la soo dhigo subxaanallah bal haddaba daawade gabadhan oo runaantii cadho jiqa oo dabcan daawadayaal garab weydiisatay ummadda Soomaaliyeed meel walba ay joogto in qofkaasi loo soo qabto videogaasi dabcan baraha bulshada la keenay taasoo muddo badan lagu rakaateynayay oo dabcan marka ka sii dambeysana daawadayaal muuqaalkaasoo idil ay lacag u bixinaysay qof walba muuqaalkeedaasna arka ugu hanjabayay haddii aad lacag keeni weydo amba jirkaaga in muuqaalkaasi uu tegayo baraha bulshada balse daawadayaal gabadhan badan oo runtii la soo ciilay ugu dambeyn waxa ay sheegtay in muuqaalkaasi muddo 2 sano ay ka gami weyday taasoo dabcan marka ka sii dambeeyay hanjabaad kala kulmaysa dadyoga muuqaalkaasi ka haya si kasta noqotay daawadayaal waxa gabi ahaan fahmna fiicnay u dirtay dhammaan ummadda Soomaaliyeed in gabi ahaanba qofkaasi muuqaalkayga duubay sawirkeeda iyadoo gabi ahaan soo muujinaysa in sida ugu degdega fiican la soo qabtaan kadibna daawadayaal videogaasi baraha bulshada yaalay iyo sidoo kale inanimadeedii oo laga dilay maadaama dadyo badan oo Soomaali aragtay oo runtii Somali Nude la soo dhigay videogaasi uu sina baahay in gabi ahaanba gabadhaasi loo dilo amba xaal loo qaado runaantiina maanta Soomaali garab ay weydiisatay waxaanay tiri maanta mustaqbal baan leeyahay hooyan doonaya inaan noqdo waa hadal runtii murugo leh oo dabcan ay ku sheegtay daawadayaal muuqaalkani taasoo dabcan ay tiraaday in gabi ahaanba muuqaalkaasi qof walba oo walaalka oo haya uu soo gaaray in si walaaltinimo walaasha baan hay waan kula dhashay waan ku dhixi doonaa inaad muuqaalkaasi dhilid garayso haddii uu ku soo gaaray sidoo kale waxa ay sheegtay in arrinkaasi looga daba hari doonin ninkaasi sida qaldan ee intuu uu kiliinkaysiiyay iga duubay taasoo dabcan daawadayaal arrinkaasna uu noqday arrin baraha bulshada ku baaha si kasta noqotay daawadayaal hore ayaa u sheegtay in ciidanka ammaanka ay u sheegtay Soomaaliya taasoo dabcan arrinkaasi aan islaasa ayuu ku dhamaaday balse markii aan Itoobiya u dalxiis tagay sidoo kale caasimadda Somaliland ee Hargeysa ayaa lagaga faa'iideystay kadibna muuqaalkaygan oo baraha bulshada wareegaya iyadoo gabi ahaan luuqa lagaga soo diray Instagram-ka iyo sidoo kale WhatsApp-yadeeda si kasta noqotay daawadayaal dhalinyaro badan oo TikTokeris oo arrinkan aan la wadaagay kadibna muddo badan oo laaluush iyo lacag aan ku bixinayay si aan muuqaalkaygaasi baraha bulshada u gaadhin maadaama lagaga faa'iideystay dawooyin iyo sidoo kale mukhaadaraad dabcan waa arrin xanuun ku reebay gabadhaasi fahmna fiicnay wax walba ay u soo samirtay nolosha iyo sidoo kale lacag lagaga qaado
waxay ahayd gabadh runtii aada u murugo badan. si kastaa noqotay daawadayaal, gabadhan oo bareeda TikTok soo duubtay muuqaal ay kaga hadlaysay fideogan iyo sidoo kale sidaa lagaga faa'iidaystay, taasoo dabcanna ay sheegtay in mukhaadaraad ay siiyeen wiilka ay soo saaratay marka ay hadlaysay. dabcan muuqaalka TikTokta waad ku arki kartaa oo waxaad ku qortaa Fahmna Ficnay amba Fahme Axmed, taasoo dabcanna uu kuu soo saarayo muuqaalkaasi iyo sidoo kale ninka ka duubay ay profilka dabcan markay ay hadlaysay fideoga ay ka horreysisay. si kastaa noqotay daawadayaal, waa wax caado u noqday Soomaalida oo idil, marba marka kasii dambeysana baraha bulshada lagu arkayo gabadh ayaa laga duubay cod, gabadh ayaa la fadeexeeyey, gabadh ayaa wax muuqaal laga hayaa. waa arrimo run ahaantii Soomaalida ay iskula kacayaan muddooyinka ugu dambeeyey, subxaana allaahi alcadiim, taasoo dabcan noqotay dhaqan iyo caado runtii Soomaalidu muddooyinka ugu dambeeyey ay ku kacayaan. walaasheen oo runtii fideo murugo leh oo ay ka seexan weyday muddo badanna ay ka gami weyday, taasoo dabcanna daawadayaal ugu dambeynna fideogaasi waqti xadirkan uu soo shaabaxay wax walba oo runtii lagu rukaatay gabadhaasi la odhanayo fideo ayaa ka hayaa lacag bixiyo sidoo kale jidhkaaga, taasoo dabcanna daawadayaal arrinkaasna uu noqday arrin lagu qasbay gabadhaasi. in badan oo run ahaantii ay qarinaysay fideogaasi lacag iyo maal ay ku bixinaysay, waxay ugu dambeyn noqotay in fideogaasi lagaga faa'iidaysto marka ay dalxiis u tagtay Itoobiya, taasoo dabcan wiilkii ay ka duubay maal iyo adduun waxay haystaba ay u hurtay si aanu fideogaasi u dhaafin. si kastaa noqotay, Fahmna Ficnay waa qof muddo badan murugo ku jiray, iyo sidoo kale fideogeedaasi goorma ayuu baraha bulshada gaadhayaa. waqti xaadirkana daawadayaal, fideogaasi Facebook iyo sidoo kale Telegram meel walba oo lasoo dhigay, dabcan waxa uu noqday fideo run ahaantii jidhkeeda gebi ahaanba laga duubay, balse daawadayaal arrinkaasoo idil ma sheegi karno. oo runtiina waxaan gebi ahaan muuqaalkaasi kusoo aragnay baraha Telegramka. si kastaa noqotee, muuqaalkaasi waxa uu noqday muuqaal baraha bulshada aada ugu baahay. bal haddaba daawadayaal, gabadh oo fariinteedii u dambeysay dirtay ayaa waxa ay ku sheegtay in qof walba oo muslima oo fideogaasi arkay si walaalnimo iga dhaleedgareeyo, oo run ahaantiina qofka iga sii baahinayana in walaal ka daayo, oo runtiina fideogaasi si qaldan ayaa lagaga faa'iidaystay. walaashin ayaan ahay oo ramcan daawadayaal rabo mustaqbal oo doonaya inaan hooyo noqdo. waa arrin runtii murugo leh oo dabcanna maanta aad dareemi karto haddii maanta walaasha amba fideo laga duubo inaad run ahaantii ka xumaanayso. dabcanna daawadayaal arrinkaas soo idil runtii in badan aan qarinaya bay tiri Fahmna Ficnay. ugu dambeyn fideogu waa uu soo baxay, runtiina waxa uu noqday fideo baraha bulshada ku baaha. balse daawadayaal, maanta Soomaaliya oo idil waxaan weydiisanayaa in gebi ahaanba qofkaasi fideogaasi soo baahiyey waan garanayaa oo sawirkiisu waa kan, balse daawadayaal fideogaasi baraha bulshada ayuu ku baahay, oo runtiina walaashin ayaan ahay qof walba oo arkaa iga saaro fideogaasi. si kastaa noqotay daawadayaal, muuqaalka inta ayaan kusoo koobanaa weynayo muuqaalkaasi xiga iyo sidoo kale cidda ka duubtay muuqaalkaasi waana mahadsantihiin daawade. mar labaad iyo sidoo kale mar koowaad waxaa idin xasuusinaa inaad channelka subscribe saarato, gambaleelkana furato si ay idiin soo gaadhaan muuqaalada xiisaha badan aan ka soo gelino. sidoo kale muuqaalka like saar, like-tu waxaa ka caawinaysaa inuu fideogan meel fog gaadho. mahadsanid. waxaan u mahadcelinayaa mar walba saaxiibada igu soo biiraya iyo sidoo kale kuwii hore ila socon jiray. runtii farxad gaar inoo tahay muddo yaroo kooban ay ku xidhnay daawadayaal 68 subscribe waana mahadsantihiin aad noola garab joogtaan. daawade muuqaalkaasi xiga waxaanu kaga hadlaynaa ninkii ka duubay fideogaasi ma la qabtay mise waa uu baxsaday. daawade nala socda mar walba.